soo dhawaada saaxiibada qaaliga. maanta waxaa idin sida sahay ama fursad aad kaga bixi doonto shiidka shaqo la'aanta ama side hustle ku noqon kara kab dhaqaale. fursadaha internetka yaala way fara badan yihiin marka loo eego sida ay tiknoolajiyada aad ugu baxday caalamka casrigan aan hadda noolnahay. waxaa soo batay fursado badan oo qof kasta oo u diyaarsan fursadaha kaga samayn karto dhaqaale ka dhigi kara qof financially freedom ah. fursada koowaad waa writing. waxaa jiro qaabab oo aad lacag kaga samayn karto qoraalka adiga oo aan goob shaqo tegin. tan waxay fursad u tahay qof walba oo ku fiican qoraalka iyo dhisida dukumenti tayo fiican leh. goobaha aad lacagta kaga samayn karto qoraalka waxaa ka mid ah Upwork waa goob lagu soo baahiyo shaqooyin badan oo u baahan qof xaliya. waxaana jiro kambaniyo raba in loo diyaariyo artikalo sida blog posts oo kale ama website rabo contentyo qoraal ah in loo sameeyo sida website-yada news oo kale ama website-yada lagu soo bandhigo dhacdooyinka dunida ama kuwa ciyaaraha. waxaa sidoo kale aad ku biiri kartaa content mills adigoo isdiiwaan gelinaya website-yada sida text broker ama iWriter oo kale. goobahaas waxaa jiro macaamiil raba ama arday raba in loo diyaariyo qoraalo ama assignmentiyo markaa khuseeyo qoraal. halkaa waxaad kaga samayn kartaa dhaqaale. fursadaha yaala internetka oo ah dhanka iyo writingka way fara badan yihiin. waxaa sidoo kale aad samaysan kartaa buugaag adiga kuu gaara ama artikalo aad adigu hal abuurtay adigoo markaa kusoo bandhigaya Amazon, KDP iyo Smashwords oo kale. halkaa oo aad dhaqaale kaga samayn karto haddii qoraaladaada iyo buugaagta aad hal abuurtay ay yeeshaan macaamiil tiro badan. fursada labaad aad internetka lacagta kaga samayn karto waa inaad noqoto content curator. content curatorku waa qof sameeya xog raadin kadibna isku keena xogta kana dhiga hal xog ama hal ciwaan, taas oo u fududeynaysa dadka ku xiran xogihii ay u baahan lahaayeen inay meelo badan ka raadiyaan in ay ka helaan hal content. tusaale ahaan akoonada lagu baahiyo kale qoraalada quizka ama aragtiyaha ku saabsan falsafada ama aan dhahno boogaga lagu baahiyo qoraalada laga soo aruuriyo buugaag kala duwan kuwa oo laga yaabo in wax badan ay garaad ahaan u dhisaan qofka markaa kugu xiran. buugaga haddii aad samaysato waxay ka caawinaysaa inaad lacag ka samayso adigoo isticmaalaya aragtiyo aad isu keentay kana dhigtay hal boosti. fursada saddexaad aad internetka lacag kaga samayn karto waa inaad noqoto web designer. runtii fursadan waa mid ay fududahay barashadeeda, dhaqaale fiicanna aad ka samayn karto haddii aad noqoto ama aad ku noqoto professional. waa fursad baahi badan loo qabo. runtii inaad web dhistana kaagama baxayo waqti badan oo dhisida website. marka aad tahay professional waxay ka qaadanaysaa waqti yar oo kooban ama aan aad u tiro badnayn. marka loo eego tiknoolajiyada casrigan, ganacsiyada dhan waxa ay xoog saareen dhanka iyo suuqgeynta digitalka ah. marka web designersku waxay halkaa fursad ka heleen in marka hal abuurkooda ay ku helaan dhaqaalo marka ay ka noqdaan. See you, bye bye.